ninka waxa uu ka baxsaday Dubai. Aan kaaga warramo sababta. Markii uu horeysay waxa uu bartay maamulidda hoteelka oo uu ka bartay iskuul ku yaala waddanka Italy. Kadib waxa uu tababar la shaqayn bilaash ah afka qalaadna lagu yiraahdo internship ka helay hoteelka Hilton ee ku yaala waddanka Mareykanka magaalada Los Angeles. Iyadoo haddana ay tahay internship mushaar ahaan wuxuu u qaadan jiray lacag dhan $1,700 ilaa $2,000 bishiiba. Sanad kadib waxa dhacay fiisihii Mareykanka ku joogay. Kadib waxa uu shaqo ka helay isla hoteelkan Hilton qayb uu ku leeyahay Dubai. Hase ahaatee maalintii hoteelka uu yimiday waxa laga qaaday interviewgii. Kadib maamulkii hoteelka ayaa u sheegay in sharciga halkan uu yaala uu yahay qofka in baasaboorkiisa laga qaado inta uu shaqaynayo. Isna waxa uu isdhahay baasaboorkaaga waxa kuma falayaan, waxay kaliya ku darsanayaan cadeymaha shaqada. Markuu muddo ka shaqaynayay ayaa waxa uu arkay rafaadka iyo dhibaatada ay leedahay iyo cadaadiska badan ee shaqaalaha ku dhacaya. Mushaarahan waxay u siin jireen $2,500 oo dhiganta lacag ku dhawaad $400 iyada oo ay la socoto jiifkii cuntadii. Kontraagii ama heshiiskii uu saxeexay waxa ku qornaa inuu shaqeeyo 8 saacadood balse may noqonin. Mararka qaar wuxuu shaqayn jiray 10 saacadood, 12 saacadood, mararka qaarna 16 saacadood oo aan lagu siinaynin lacag dheeraad ah. Waxa kale oo heshiiska ku qornaa in 6 cisho uu shaqeeyo isbuucii, maalinna uu nasto. Hana moodi maalinta uu fasax yahay inuu magaalada quruxdeeda soo daawan karo. Waxa jira bas ka qaadi jiray shaqada oo geeya guryaha loogu talagalay in shaqaaluhu seexdaan, kuwaas oo magaalada ka baxsan. Waxa jooga askar ilaalisa shaqaaluhu inay dibadda u baxaan ama inay meelo kala qabtaan. Sidaad ka fahmi karto waa sidii jeelka oo kale. Muddo markuu ka shaqaynayay ayaa waxa la gaaray bishii fasaxa uu geli lahaa. Waxa uu arkay inay tani tahay fursad wanaagsan oo kaga baxsan karo. Waxaan go'aansaday inuu waddankiisii Italy ku laabto dibna aan ugu soo noqonin. Waxa uu qoladii maamulka hoteelka weydiistay inay baasaboorkii siiyaan maadaama uu fasax galayo. Waxay ugu jawaabeen waa inay saxeexaan oo ay ku damayntaan 2 ka mid ah shaqaalaha kuugu dhadhow. Iyaga ayaana ka mas'uula inaad soo laabato. Waa ay saxeexeen, waanu tegey. Muddadii marka ay dhammaatay muusan soo laabanin. Labadii nin ee damaintay maamulihiisa iyo nin kale oo ay wada shaqayn jireen ayaa waxa laga goostay mushaharkii bisha. Isaguna waxa uu jeebkiisa ka soo bixiyay oo uu soo diray labadii nin mid ka mid ah kaasi oo ahaa ninkii ay wada shaqayn jireen. Ninka kale waxa uu ahaa maamulihiisa uma soo dirin sababtoo ah wuxuu ahaa ninkii ku khasbay inuu joogo. Arrimaha noocan waxay ka jiraan Dubai. Ha u darnaadeen shaqaalaha dhismaha ka shaqeeya kuwaas oo loola dhaqma sidii addoomaha oo kale.